بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى درسنا maanta wuxuu ka bilaabmayaa maqrada labaad ee suurad wuxuu ka bilaabmayaa marka maqrada labaad suurad Furqaan aayadda 21 wuxuuna insha Allah ta'ala aw ku dhamaan doonaa maqrada dhamaadkeeda hadii la yiraahdo oo ah aayadda 12 يقول الله سبحانه وتعالى وقال الذين كوي waxay yiraahdeen لا يرجون أن رجينين يعني كواحد صوص كلس أن كعب سونين أن رجينين كعب سونين لقاءنا لكلن كيجا لولا أنزل علينا محل النجوس والدجين ويكر كيجا ما الملائكة ملائك لولا أنزل ما لجوس والدجين أما محل لجوس والدجين ويو علينا كر كيجا الملائكة ملائك أو نرى أمام أرجنا ربنا رب جيو الله وحي لقد استكبروا way isweynayeen fi anfusihim nafahooga ayay isweynayeen oo iskibriyeen wacatow way xadgudbeen cutuwan xadgudub kabiiran weyn yowma maalin yarown ay arkayaan almalaa'ikata malaa'igta laa bushraa bishaara uma ahaani yowma idin maalinta lilmujrimiina kuwa mujrimiinta ah wayaquuluuna waxay leeyihiin xijran حاران محجورا لحرمي وقدمنا الله وحلي وحانو قصدني ونكعتمني إلى ما عملوا وحي أي سميين ومن عمل فجعلناه وحن كيالني هباء بود منثورا لفردية أمل للصيري يعني قالوا هدي سميان وحوناكسن وقرابة حيلس وحي لا يوجعل يهي الدنيا أن يكون فعال لكن آخر أساس إلهي سبحانه وتعالى أو كي يلدنا الله وحلي أصحاب الجنة جنة أصحاب تيدو يومئذ مالنتا خير مستقرا ميل لغو سقنادو أو كخير بدن أي كسقينهين خير إيجا أي خير بدن مستقرا مكان سقناشو أما ميل لغو سقنادو وأحسنو إيجا أي وناكسن مقيلا ميل لغو نصدو أصحاب الجنة جنة أصحاب تيدو يومئذ مالنتا خير إيجا أي خير بدن مستقرا ميل لغو سقنادو إيجا أو خير بدن وأحسنو إيجا أي وناك بدن مقيلا ميل لغو نصدو وحويان ووحي عذاب ودب أردن بكنسن دونان واذكر حس نبي الله يوم مالين تشقق أيدي الدلاعي السماء السماد بالغمام ضرورة درتيد ونزل والدجين الملائكة ملائكة تنزيلا سودجين الملك بقرت النمض يومئذ مالنتا الحق الله سبحانه وتعالى وحي الملك بقرنمضو يومئذ مالنتا الحق حق هي أي وهاتي للرحمن الله الرحمن كأن حريست بالعرم فيديا وكان وحو هذا أو يهي ما وكان عفوا وكان وحو هذا يوما مال على الكافرين كو قال ذا عسيرا كو أدق وكو علس الملك يومئذ الحق ملك جاسو حق الملك بقرت النمضو يومئذ مالنتا هي ملك جاسو حقه هي للرحمن الله الرحمن كأيوه هذه وكان وحو هذا يوما مالين على الكافرين قال ذا عسيرا كو أدق أو كو علس واذكر وحو النبي الله يوم مالين يعض أو قنيني دونو الظالم قفك ظالم كيه على يديه لبدي سقعمود يقول إسقوله يا ليتني قوم مضيديي اتخذت ما سميستو مع الرسول كمعيسى سبيلا جد يعني رسول كما راعو واني جديد جري محان جدك أو رسولك ينفرج جري محان الراعي وايي يا ويلتا قول در ضيديي ليتني قوم مضيدي لم أتخذ
kamaanan samaysanaa fulaanan hebel khaliilan saaxiibtinimo. saas waa mase ay odhan doonaan gaaladu maalinka qiyaame. yaa weylataa guuldaradaydiyey, laytanii qoomadaydiyey, lam attakhid kamaan dhiganina fulaanan hebel khaliilan saaxiib. laqad adalanii xaqiiq ahaan wuxuu iga lumiyey can idikri qur-aanka raacitaankiisa ayuu iga lumiyey bacda id jaa-anii markuu i yimida qur-aanku ama waxyu ka bacdi. wa kaana shaytaanu shaytaankuna wuxuu ahaaday lilinsaani insaanka khaduulan mid lugoyn badan oo waxa weeyaan lugoyn badan. wa qaala arasuulu rasuulkiina wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigayow ina qowmii qoomkaygii ittakhaduu waxay ka samaysteen hada alqur'aana qur'aankan mahjuuran mid laga tago. wakadaalika sidaasaa jacalnaa aan u yeelnay buu leeyahay alleh likulli nabiyin nebi walba caduwan cadow aan u yeelnay min almujrimiina kuwa mujrimiinta ka mid ah. wakadaalika sidaasaan jacalnaa u yeelnay likulli nabiyin nebi walba caduwan cadow min almujrimiina mujrimiinta ka mid ah. wakafaa allah kaafiya ku filan ama allah ku filan birabbika rabbiga haadiyan mid hanuuniya wanasiiran iyo mid u gargaaraba. yacni hanuun iyo gargaarba rabbigaabaa ku filan. wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila calayhi maa lagu soo dejiyo ama maxaa loogu soo dejin waayey. wa qaala aladiina kafaruu waxay yidhahdeen kuwii gaaloobay lowlaa nuzilo maa lagu soo dejiyo calayhi qur'aanka calayhi nebiga korkiisa alqur'aanu qur'aanka jumlatan waaxida isagoo duuduuba mar keliya. wa qaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waxay yidhaahdeen lowlaa nuzila hallaa nuzila cala arasuuli hada alqur'aan dufcatan waaxida. maxaa loogu soo dejin waayey rasuulka lowlaa nuzila maxaa loogu soo dejin waayey calayhi rasuulka alqur'aanu qur'aanka jumlatan waaxida yacni dufcatan waaxida isagoo wada socdo mar keliya. kadaalika sidaasaa linuthabbita si aan ugu sugno bihi qur'aanka fu'aadaka qalbigaaga waratalnaahu yacni saasaan alla wuxuu leeyahay waxaan u soo dejinnay qur-aanka isagoo qeyb ah si aan ugu sugno qalbigaaga. waratalnaahu waxaan kala dhigdhignay tartiilan kala dhigdhigid. wa qaala aladiina waxay yidhahdeen kuwii kafaruu gaaloobay lowlaa nuzila calayhi maa lagu soo dejiya qur-aanka nebi maxamed korkiisa jumlatan alqur'aanu qur-aanka jumlatan waaxida isagoo wada socda mar kaliyaatoo duuduub ah. alle wuxuu leeyahy kadaalika saasaan usoo dejinay qur-aanka isagoo qeyb ah linuthabbita si aan ugu sugno bihi qur-aanka fu'aadaka qalbigaaga waratalnaahu waan kala dhigdhignay qur-aanka tartiilan kala dhigdhigid. walaa ya'tuunaka kuula iman maayaan bimathalin mathal kuula iman maayaan ilaa ji'naaka hadday kuula yimaadiinna waxaan kuula nimidnay bilxaqi xaq baan kuula nimidnay wa axsana iyo mid ka wanaagsan tafsiiran xagga tafsiirka. aladiina kuwa yuxsharuuna la kulminayo calaa wujuuhihim yacni la kulmin doono iyagoo wejiyadooda ku socda ilaa jahannamo dhankeedan loo kaxayn doono. ulaa'ika kuwaasi sharun iyaga ayaa sharun makaanan xagga darajada shar badan. wa adalu oo lunsan sabiilan xagga jidka. aladiina kuwa yuxsharuuna la kulmin doono calaa wujuuhihim wejiyadooda korkooda ilaa jahannamo xaggeedan loo kaxayn doono. ulaa'ika kuwaasi sharun makaanan xagga darajada iyagaa shar badan. wa adalu iyagaa markaa lunsan sabiilan xagga jidka. wuxuu leeyahy wallaahi walaqad aataynaa wallaahi waxaan siinay muuse alkitaaba kitaabka wajacalnaa waxaan u yeelnay macahu maciisiina akhaahu walaalkii baan ka dhignay haaruun ahaa wasiiran mid isaga xoojiyo wasiir u ah. faqulnaa waxaan ku nidhi idhabaa muuse iyo haaruuna u taga ila alqowmi aladiina kadabuu qoomkii beeniyey biaayaatina aayaadkayaga fadamarnaahum ilaa alla wuxuu leeyahy waan tirtirnay oon baabi'inay tadmiiran baabi'in ama tirtirid. wa qowma nuuxin
wadamarnaa sidoo kale waxaan tirtirnoon baabi'inay qowma nuuxin nuux qoomkiisii lamaa goortii kadabuu rusula rususha ay beeniyeen aqraqnaahum waan maashaynay oo waan qarqinay wajacalnaahum waxaan ka dhignay linnaasi dadka waxaan uga dhignay aayatan aayad lagu cibro qaato waactadnaa waxaan u diyaarinay lidaalimiina kuwa daalimiinta ah cadaaban cadaab aliiman waxanuujiya sidoo kale wadamarnaa waxaan baabi'inoon tirtirnay caadan ree caad wathamuuda thamuudna waan tirtirnoon baabi'inay wa asxaaba arasi ceelka asxaabtiisana waa qoom markaa rasuul loo soo diro qur-aanku wuxuu ku tilmaamaa asxaabu rasi ceelka asxaabtiisana waan baabi'inay weli alleh wa quruunan iyo quruuno ama ummado bayna daalika kuwa iyo kuwan kale u dhexeeyey alle wuxuu leeyahay walaqad atow way yimaadeen cala alqaryati qaryadii korkeeda allatii tii amtarat lagu da'siiyey matara saw-i xumaanta roobkeeda waa kuwaasna waa qowmu luut weyaan waa qaryadii reer luut afalam yakuunuu miyaanay ahayn yarownahaa kuwan mushrikiinta ee nebi maxamed diidayaay kuwii arkaya bal iskaba dhaafe kaanuu waxay ahaayeen laa yarjuuna kuwa aan rajaynin nushuuran soo saarid dambe wa idaa ra'aaka marka ay ku arkaan nebi maxamedu nebi allow in yatakhiduunaka kaa samaysan maayaan ilaa husuwan jees maahine oo maxay odhanayaan qaa'iliina iyagoo leh ahaadaa kani alladii makiibaa bacatha allaahu ilaahay ou soo diray rasuulan rasuul ou ka dhigay isagoo iyagoo rasuul ku dheeldheelaya alla wuxuu leeyahy inkaada waxay yidhaahdeen mushrikiintii inkaada wuxuu sigay layudilunaa inuu naga lumiyo can aalihatinaa ilaahyadayada lowlaa an sabarnaa calayha haddaanu ku sabri lahayn ama haddii aan la heli lahayn sabir aan ku sabirnay uu naga lumin lahaa ilaahyadayada wasawfa mar dambay yaclamuuna ogaan doonaan xiina wakhtiga yarowna ay arkaan alcadaaba cadaabka man adallu yaa lumitaan badnaa sabiilan xagga jidka halkan waxaan ka fahmaynaa aayaddan markay gaaladii leeyihiin oo qiranayaan inkaadat layudilunaa can aalihatina wuxuu sigay rasuulku ay leeyihiin inuu laga lumiyo ilaahyadayada halkan waxaan ka fahmaynaa rasuulku inuu aada ula hadli jiray ou doodii kaga guulaystay iskamana celin karaan ou mar walba u sheegi jiray innaguna inaan dacwadda gaarsiino saasaa loo baahan yahay jaarka khayrka loogu yeedho dadka la gaarsiiyo ilaahay baana subxaanahu watacala caaqibatu lilmuttaqiin alla wuxuu leeyahay inkaada waxay yidhahdeen gaaladii wuxuu sugay layudilunaa inuu naga lumiyo can aalihatina ilaahyadayada lowlaa an sabarnaa calayha haddaan la heli lahayn sabar aan ku sabirna ilaahyadayada yacni haddaanu ku sabri lahayn ilaahyadayada uu naga lumin lahaa wasawfa mar dambe yaclamuuna ogaan doonaan xiina wakhtiga yarowna ay arkaan alcadaaba cadaabka man adallu ka lumitaan badan sabiilan xagga jidka ara'ayta bal waxaad ka warantaa nebi maxamedow man itakhada qofka samaystay ilaahahu ilaahiisa hawaahu waxay naftiisu jeceshahay afa anta takuunu adigu ma ahaan calayhi korkiisa wakiilan mid loo xil saartay halkan waxaa laga wadaa nebi maxamedow adiga waxa ku saaranuun inaad gaadhsiiso yaa nebiyallah gaadhsiin laakiin adiga xil kaama saarna wax lagaa weydiinana ma jiro inay qaataan iyo in kale alle wuxuu leeyahy am taxsabu ma waxaadse u malaynaysaa am mise taxsabu waxaad u malaynaysaa anna akharahum badankoodu yasmacuuna inay maqlayaan simaaca alqabuul yacni maqal wax lagu qaato ow yacqiluuna ama inay caqliyeynayaan ay wax fahmayaan inhum ay maahum iyagu maaha ilaa kalancaami sidii xoolo oo kale mooyaane bal iskaba dhaafa alla leeyahay hum kuwana mushrikiinta ayaa adallu ka lumitaan badan sabiilan xagga dariiqa waayo wixii loo abuuray iyagu way diidan yihiin alla wuxuu leeyahy alam tara miyaanad arkayn alam tara ilaa rabbika alam tara miyaanad arkayn
ilaa rabbika kayfa madda dilla sida au u taago rabbigaa hadhka walow shaaa alam tara miyaanad arkayn ilaa rabbika kayfa madda dilla sida au rabbigaa u taago hadhka walow shaaa hadduu dooni lahaa alleh lajacalahu hadhkaa wuxuu ka yeeli lahaa saakinan mid taagan yacni wuxuu ka dhigi lahaa mid jooga thumma intaa kadibna jacalna shamsa ilaahay wuxuu leeyahay waxaan uga dhignay qoraxda calayhi hadhkaa korkiisa daliilan mid daliil u ah oo muujisa oo tusta thumma intaa kadibna wuxuu leeyahay alleh qabadnaahu waan ururinay ilaynaa xaggayga ayaan hadhkii u soo ururnay qabdan qabasho yasiiran sahlan oo fudud wahuwa yani halkan waxaa laga wadaa hadhka allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay alam tara miyaan arkayn ayuha rasuul rasuul allow ilaa aathaari khalqi illaahi ilaahay subxaanahu watacaala abuurkiisa inuu allah subxaanahu watacaala au hadhka fidiyo haddii ilaahay au dooni lahaana wuxuu ka dhigi lahaa mid aan dhaqdhaqaaqaynin dabadeedna qoraxdii baa imanaysa hadhkii markuu soo baxo iyadii baa tilmaamaysa haddana wuxuu leeyahy allah subxaanahu watacaala in yarin yar ayuu hadhkii u dhammaanayaa ilaa uu qofka markay qoraxda ku beeganta hadhkii la waayaba haddana saas u soconayaa buu leeyahy allah subxaanahu watacaala alam tara miyaanad arkaynin nebi allow rabbaka yacni abuurka rabbigaa kayfa sida madda sida au u taago rabbigaa hadhka ama au u fudiyo kayfa madda dilla sida au u taage au u fidiyo adilla hadhka walow shaa allah hadduu doono lajacalahu wuxuu ka yeeli lahaa saakina midaan dhaqdhaqaaqayn oo taagan thumma intaa kadibna jacalnaa waxaan ka yeelnay buu leeyahy alle ashamsa qoraxdii calayhi hadhka korkiisa daliilan mid tusayso oo markaas muujinaysa thumma intaa kadibna qabadnaahu waan soo ururinay ilayna xaggayga qabdan qabasho yasiiran fudud oo sahlan wahuwa aladii alla kii wayaan jacala ka yeelay lakum idinka idin yeelay alleyla habeenka libaasan labis dhar idinka dhigay wa nowma hurdadana subaatan raaxo mid tacabka goysa wa jacala ka yeelay annahaara maalintana nushuuran mid aad faaftaan oo waxa weyn aad raadsataan markaa wahuwa aladii alla kii weeyaan arsala dilay alriyaaxa dabaylaha bushran xaal ay yihiin markaa kuwa bishaaraynaya bayna yaday raxmatihi raxmadiisa hortiisa yacni roobka ayay tilmaamayaan waanzalnaa waxaan soo dejinay buu leeyahay alle min asamaai samada waxaan ka soo dejinay maa an biyo tahuuran daahir ah waxna dahira linuxiya si aan ugu noolayno bihi biyaha baldatan arlo meytan dhinsan wa nusqiyahu iyo si aan ugu waraabino mimaa khalaqnaa yacni xaal ou ka mid yahay kuwii aan abuurnay ancaaman nimcoole ama xoolo wa anaasiya ama dad kathiiran fara badan alla wuxuu leeyahy walaqad sarafnaahu waan soo celcelinay oo roobkii walaqad sarafnaahu wallaahi waan u soo celcelinay baynahum dhexdooda liyadakaruu si markaa si ay ugu waano qaataan fa abaa way diideen aktharu nnaasi dadka badankoodu ilaa kufuuran gaalnimo mooyaane way diideen markaas wax walba way diideen alla wuxuu leeyahay falaa tutic ha adeecin alkaafiriina gaalada wajaahidhum cafwan walow shi'naa haddaanu dooni lahayn buu leeyahay alleh labacahnaa waanu soo bixin lahayn ama waanu ka soo saari lahayn fii kulli qaryatin degmo walba nadiiran mid u diga alla wuxuu leeyahay falaa tutic ha adeecin alkaafiriina nebi maxamedow kuwa kaafiriinta ah wajaahidhum la jihaatan bihi jihaadan jihaad kabiiran weyn. wallahu subxaanahu watacaala aclam.